aad iyo aad buu mahadsan yahay ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka haynagu anfaco wiilkaa dhallinyaradaana allaha ka abaalmariyo suuraddii jumcaha ee uu inoo akhriyeyna ilaahay subxaanahu wa tacaala nuurkii uu nebi maxamed ballan qaaday allah haynagu siiyo muxaadarada toos u geli doonaa muxaadaradu waxay daaran tahay guurka iyo qaybo ka mid a axkaamtiisa iyo qodobo wakhti xaadirkan bulshadeenna dhexdeeda ka taagan oo mudan in la dul istaago waxaa muxaadarada inoogu qoran kulanka saaka ama muxaadarada koobaad geli doona sheekh maxamuud xaliike isaga ayaynu si wada jira u soo dhoweyn doonaa falyatafadal الshaykhu mashkuura ma'juura الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا ورسولنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ثم أما بعد اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم اجعل أقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم اللهم يسر لنا لليسرى وجنبنا العسرى اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمون وأيتها المسلمات marka u horeysa iyo mar walba waxaynu mahad celinaynaa Allah subhanahu wa ta'ala allihii ina ka dhigay ummad muslimiina oo ilaahay taqaana oo rasuulkiisii taqaana oo micnaha loo abuuray garanaysa allaha samahad iskale ilaahay baynu mahad celinaynaa in uu kitaabka quraanka ah ee kariimka inoo soo dejiyey ilaahay baynu mahadnaqaynaa rasuulkeennii suubanaa inuu inoo soo diray calayhi salaatu wasalaam quraanka iyo diinta iyo shareecada inoo bayaamiyey bayaanan shaafiyan ilaahay waxaynu ugu mahad celinaynaa subxaanahu wa tacaala inuu ina ku duway dariiqa wanaagsan ee shareecada iyo fahamka suuban ee toosan inuu ilaahay ina ku duway oo duruuqda dalaalka iyo wixii la mida ilaahay ina ka duway alxamdu lilaahi calaa nicmati alislaam intaa bacdigeed wakhtiga yare kooban aynu haysanno ilaahay waxaan ka baryayaa aniga ereyga ama ereyada odhanaya iyo cidda dhegaysanaysaba inuu ku anfaco fi lxayaati wa bacda almamaat kelmaddu waxay ku saabsan tahay guurka iyo noloshiisa wax ka mida waa masalo bulshada halkan fadhida qaybina iminka ay ku dhex jirto nolosha caynkaasa qaybina ay nolosha caynkaasihi filayaan wakhti dhow in ay haddii alla idmaayo ku biiraan sidaa awgeed waxaa shareecadu ay siisay miisaan aad u culus oo qofka muslimka ah inuu wax weyn ka ogaado ay u baahan tahay sidaasoo noqonaysa in shareecadu meeshay dhigtayna uu qofku fahmo waayo aragnimada iyo waaqica nolosha iyo dhaqanka wanaagsanna uu qofku wax badan ka haysto sidaa awgeed baa waxa weeyaan qofku marka uu qoys yeesho waa qof wax horumar iyo tacliin iyo jaamacad qoyska arrimihiisa ku saabsan buu ka baxayaa marba kalaas buu ka gudbayaa marba meel buu ka sii tallaabayaa ilaa uu marka dambe noqdo qof isagii mustashaar ah oo masaladan ciddii uu ku dhaamo markaa uu uga faa'iideeyo qur-aankeenna qiimaha badan ee ilaahay wax walba ku koobay guurka markaad fiiriso asaaliibta iyo qaababka kala duwan ee ilaahay guurka uga hadlay subxaanahu wa tacaala في سورة النساء وكلا فانكحوا هو جورج بورينيو ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع إلى وحوله سبحانه وتعالى جورسدا ركب على الله هذليا وحي إذين وناكسنا هذا حلال إذين نقضاء ضمر كأه جورسدا لبلبه جورسدا صدح جورسدا أفرافر وجورسدا مركل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسوع يرتها بنا يوحو يري فمن رغب عن سنتي فليس مني جورك السنة ذي يا وضد ذي أيو كمدي هاي يا منهج كيجي عن لئيمي عدي كبيدا أما كويعته ديدا
وقف طريقي كوعدي وقف طريقي كوعدي قفك هدو طريقة كوعدنا ميلا وعنين بأبيريا قوركو النبي صلى الله عليه وسلم مركو تلمامي وحكم إذا يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج الله يا جمع دلن يرده رقي دمر با وهل قرصدو نبي قولي صلى الله عليه وآله وسلم قفكي أودي كريا حق عافمات هي حق دقاله إنه قيس يقليله أو سميسته هب قرصدو فوائد لقيه لي يمكن نبي قشيقي كو وحد كيه ليس فإنه أغض للبصر عندها أي قوركو دبوليا ووحو كدبوليا محانكو إرادا إنه هنقلتاغو وحكالي سومالدو waxay tiraahdaa doob dareen baa dilay ninka doobka ahi haday inantu ka hor dhaqaaqdo inay isaga u laafiyoonayso moodaya laakiin ninka qoyska lihi deetiisa habeenaya maalin hormaraysa marka inan dhaaftay iyo mid ku soo socota wax weyn uma arkayo isaga waa nin hawshiisu isku bustihiisa meel buu yaalaa laakiin ninkan bustihiisu meel u oolin tii dhaaftaaba wuxuu moodayaa isaga inay u jeedo dareenkaasa ku jira marka indhahan wax lagu eegayo isaga u daboolid badan guurku awrada iyo xubinka tarankaana isaga u wanaagsan ilaalintiisa xumaan iyo xaaran laga dhowro qofkii aan guurka awoodin nabigu wuxuu tilmaamay sallallahu alayhi wasallam ha soomo haddaadan guurka awoodin soonkaasi wuxuu keenayaa shahwadaadu inay jabto qofku markay shahwadiisu jabto oo bimacnaa dee uu gaajoodo haraado hamadiisu way yaraanaysaa sidaa awgeed kabti baa ku imanaysa inuu isxakameeyo qofkaasi quraanka markaad fiiriso suwar kala duwan ama qaab kala duwan buu guurka dadka ugu booriyey mar alle subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamayaa guurku inuu yahay min sunani alanbiyaa'i waalmursaliin susha iyo ambiyada iyo hadyigoodu inuu guurku yahay ayuu alla tilmaamaya walaqad arsalnaa rusulan min qablik wajacalnaa lahum azwaajan wadurriya رسول أديك كاهو الرئيسيبان وديرني رسول شاو حانو يلني أوريا يا أبد يا أوريو أيانو يلني بقال الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى وحو تلمامي إن رسول شيء وديري بدن كودو مدي الله بمويانه أبد يا أوريا إني لهايين تامعنا دو وحويه وين لقور سدا دعوتها لقو مشغول سنادو أقون مادية لقو مشغول سنادو ganacsiga tacab ha lagu jiro noloshu qaybta doonti kaga jir waynaad guursataa waayo rasuushii ilaahay oo xil weyn uu saaray risaaladii gudanayay kama ay tagin inay oriye yeeshaan oo ubadna ilaahay uu siiyo xagga shariicadu way ka milicsatay waxay kala shariicadu marka qaarkood waxa jira xadiis imaam tirmidhi uu soo saaro oo sanadkiisa culimadu ay wax ku sheegaan laakiin macna ahaan u sax ah xadiiskaasi nabigu wuxuu leeyahay arba'un min sunan al-mursaliin afar rimood سننتي أنبياء رسول شيء كميتهاي الحياء والزواج والسواك الحياء والتعطر والسواك والنكاح حشوتك يقفك إنه ده إسودجيو وعذريو وحوان أكسن مرصده أو ديد كيسا أوكو حاجاتشو إيو جورك يعذيك قفك إنه عذيدو الكيس يعرب كيسو أي نظيفيهين ومن سنن الأنبياء الله سبحانه وتعالى مركله وحوت المامي إن جوركو ترنت أمضى إنه كحرين يحي أمضى هداني جورسن إنه دبر جايسو مركز الله وحوت المامي سبحانه وتعالى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة إلهي سبحانه وتعالى وحينو يلي أوريو نروش أهل لو ذاكتي قبض بإلهي أوري كاسينيا قبض كاد شبه ولد الولد يونا بري markay deeg guursadaan ubad kale si dhalayaan umadu jiilba jiilbu bedelayaa waxaana sababaya inuu jiilba bedelo in la guursado ayaa sababaysa taasa ilaahay ku keenaya subhanahu wa ta'ala mar quraanku wuxuu ka cabiray guurka in guurku uu yahay aaya min ayati allah tadulluka ala wahdaniyatihi aayad iyo calaamad ku tusaysa ilaahay jiritaankiisa astaan cad oo ku tusaysa iyo kelinimadiisa wa min ayatihi أن خلق لكم من أنفسكم عكو حقا أزواجا إلهي وحيدين سمي حاسس لتسكنوا إليها
maalintaasaad caga dhiganaysaayo qoys meel degan oo magac leh oo manfac leh oo lagu soo hagaago oo qur iyo qabiila ku tashato ayaad noqonaysaa haddii kale markaad iskaabula tahay dee waxaa tahay garab rarataa iska tahay garab rarato ayaad iska tahayoo meel lagugu soo hagaagayo ma jirto sidaa awgeed baa ilaahay wuxuu tilmaamay waa xasilooni waa kalgacaltooyo labadan qof ee shalay un wada hadlay ee guurka ka wada hadlee heshiiyey dadka iyaga isugu jeclaanaya xilligaa isbarteen ay isu yimaadeenna waa kooban yahay waxay ku tusaysaa arrintaasi aaya min aayaati illah ilaahay baa qalbigooda xubbi iyo kalgacaltooyo isu gelinaya taasi way ka duwan tahay tan gaaladu isticmaasho gaaladu iyagoo isqaba oo midba midka kale ay laafiyu ku leeyahay ayaa haddana mid waliba saaxiib gaara u qarsoon haddii la isku caroodo la kala dudo iyaduna kii ay saaxiib kala ahayd bay qabanaysaa isna tii buu qabanaya laakiin muslimku waxaa ma yaqaano wax badanoo marka dhaqankoodii abaa innagayna soo gale oo hadalladay ku hadlayeen ee liita bay inagu isticmaalayna waxaad arkaysaa waxyaabaha hadda cusub guurkan cusub dhallinyarada inagu odayaal baanba iska nahaye inantiyo odaygii kule baybi isaguna baybi waa ilmo yar baa baybiga la yidhaahdaa haddaad odaygaaga tidhaahda carruurow carruur alla kaa dhig wey hodhow odayg kugu carruuroobo oo islaanta aad tidhaahdo carruur alla kaa dhig ilmo yar ay kugu carruuroodo soo wareer maaha waxaa gaaladaa laga soo naqliyey luqadii unbaa english laga dhigay wax fiican baa la boodaya adna baybi ma tido ninkaa garka iyo gafuur kale baa tahay iyaduna baybi maaha waa taa ilmaha dhaldhalaysa dee haddee waxaasi wax wanaagsan ma aha sharciga ereyo ka wanaagsan oo fiican ayaa shareecadu inay adeegsato la doonayaa in wax ka tilmaami doono waxay sheegaan soomaalidu nin iyo qof dumar isguursaday nin baa dhintay walaalkii markaasuu dumaalay qofkii dumar ahayd ee uu ka dhintay walaalkii ninkuna reer miyiba waa xoolo dhaqato ah iyaduna waxayd qof reer magaaloo degan magaalada dabeetana dee waxay baratay ninkii horay cuntada wada cunaan isagoo ay xabiibi iyo hadalla macmacaan ku tidhaahdo oo dugsi leh waxyaaba caynkaasa dee waa qoftaa reerka soo lahaan jirtay ninkan cusub markuu yimi cunada markay dadka kala siiso way dhigtaayoo waxay tidhahdaa dee odagaad wada cuntayseen maalintii dambe u yeedhay heblaayo kaale 3 arrimood maad iga dayn buu yidhi 3 arrimood maad iga dayn reerku inuu dhisnaado haddaad doonayso qodobka koowaad xabiibidan iyo waxaanaad ileeda iga daa anigu reerkayaga maxamed cali bay iila baxeen maxamed cali igu yeedh markaad ii yeedhayso waa marka labaadee markaynu dee isu nimaadno gogasha salaaxan iyo gujinta iga daa anunba iska godlane iga daa wax kan waa marka saddexaadee cunada nin weyn un baan ahay anaa wax hambayne gacanta hayla gelin cuntada marka dhaqankii baan la isla keenayn soomaa dhaqankii baan la isla keenayn marka hermagaalnimada in laga badbadiyaana wareer bay keenaysaa in si wacan loo wada dhaqmo ayaa muhiim ah oo noloshu ay ku jirtaa guurku shareecada meelo badan bay ka eegtay ilaahay subxaana watacaala wuxuu tilmaamay ragga iyo dumarka aan reera lahayn inta reeraha lihi inay u gurmadaan oo u guuriyaan waankixu layaama minkum والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم هل لو غوريا رج يا دمركا ان reeraha lahayn u guuriya ba ilaahay subhanahu wa ta'ala markaas xitaa haday noloshu yara waxaysan tahay khayr iyo kormar dhaqaale ayaa laga helaya nabigu wuxuu tilmaamay qofka guursada ilaahay xaqiisa inuu ka caawinayo ثلاث عونهم على الله حق حديث امام الترمذي waxa kamida an-nakih alladhi yuridu al-afaf qofka guursada ee doonaya inuu gogasho iyo guurkiisa ku dhowrsado ilaahay baa caawinaya oo aqalka la dhisaya oo tabantaabinaya faraj baa ilaahay u furaya subhanahu wa ta'ala xikmadda guurka ku jirta maxay tahay oo loo jideeyay hal la guursada maxaa loo leeyahay aan dhowr ka taabanno waa marka koowaade abaalka weyn iyo galada insaankan Allah u galay baa la xaqiijinaya wa huwa alladhi khalaqa min al-ma'i basharan haka dambeeya faja'alahu nasaban wa sihra qofku marka uu dhasho xigaal buu leeyahay uu ku abtirsado wuxuugaa markuu joogo qaan gaaro aabba iyo hooyana wuu leeyahay marka uu qaan gaaro weynaado guursadana xidid uu ku tarmo qofku yeelanaya waxaad yeelatay laba aabbo waxaad yeelatay laba hooyo labadii ku dhalay iyo labadan xilka ka mudan baad yeelatay marka waxaad tahay qof xigaalna leh xididna leh baad geed weyn oo la harsanayaa geed weyn oo la harsanayo oo taran badan laga filayo ayaa tahay oo maxaan ku idhaahdaa waxyaabaha ugu muhiimsan ayay ka mid tahay waxa kamid ah in naftu ku dhowrsanto oo macaasida iyo xumaanta laga badbaado in taran badan dadku ay yeeshaan tazawwaju alwalud alwadud
فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة قرسدة بالنبي يقول صلى الله عليه وسلم دمر كدلا يه رجودا تشعل قرسدة حندوني آخره إن هذا مدة إذا ومضها بقول بدنا أد نقطان وحويا حكم كيسوا مواجبة مسنة جوركو فقهاء الإسلام جمهور العلماء وحيلين والسنة مرك قاركود وحنقون كرا واجب قفكيو هنتدي هاي استوعاف ما تقبه هنقولي قيسنا وكتشر أدنى أنقول سنين حلقة يابا إنه ده بيد عادي عكاريس واجب وإنه قرصه مر بيكون نقول إنسان قرصه حرام أو واقرمة أدي قوان عافيمات كاقونا وعنين تقالها قونا وعنين لأن أنت صوه يدو يكون صوه يتحق عافيماتنا ما في عنيد حق دقالنا ما هيسيد ميال صرف فريسان وشيكين إنسان حسب كل إنسان مركا وحويان مركاسنا يدنا اللقو يدي الله ما باهنا وحشريعه تلمام إنسان مركا قرصنا يسو اختيار الزوجة الصالحة سومالد waxay tiraahdaa inankaagu marbu hiilkaaga baahan yahay markaad hooyadii baadi doonayso inaad doonto qof dumar oo diin iyo akhlaaq leh inaad raadiso inanta aad guursanayso aad xulato inan taran leh oo reerkoodu ay taran leeyihiin inay tahay inaad doontid in waxa kamida waxyaabaha aad ku xulanayso qof turaal iyo naxariis leh oo caruurta u turaysa oo qoyska iyo odaygeeda u turaysa xagga reerka laga sahminaya iyo aqalka iyo xafadooda ayaa laga sahminaya waxaad ku dadaalaysaa marka ugu horeysa inaad inaan hesho hadda carmalka laftiisu meelo badan buu kaga wacan yahay guurka ogow inanta guurkeeda shariicadu ay tilmaanto ay kaga fadli badan tahay wada waqtigan ii saamaxayne 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 la tirin karayo nusuustu ay tilmaantay ay kaga fadli badan tahay rasuulku markuu ku yiri Anas war miyaad guursatay ha ma inan baad guursatay mase carmal baan guursaday hal la tazawwajta maxaad u guursan weyday inan tulaacibuka wa tulaacibuha وتضاحكك وتضاحكها من الله قصشو كلا قصشو كلا ديشو الله ديشو رسولك لا يا أبهاي وحرقاني ودلي سيد هبلودنا واكتيجي لو حندونا يا إنن هير صور دقدي وهبلها وفدي تقانا أو كولين تقانا اسكو ودي تقانا إنن هدانو كانان يجا وحبد دامين حي ترى يسابن إيد رسولك ودعي بارك الله فيك خير الله كس من رب ضم بيمرك عرمل كجوا عنتها إن أنت لكن إن أنت إن له رئيسينا ويكوتشر تاميشا waxyaabaha lagu dooranayo waxa kamida oo shariicadu ay tilmaantay ninka laftiisu ninka laftiisu diin iyo akhlaaq leeyahay inantu markay ninka soo ardaadhigo ama guur soo bandhigo inay iska yagtaa diintiisa iyo akhlaaqdiisa ida ataakum man tardawna diinahu wa khuluquhu fazawijuhu haddii uu soo ardaadhigo qofka diintiisa iyo akhlaaqdiisa u bogtaan u guuriya wa illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid aw kabir haddaydan sidaa yeelin fitno weyn baa dhacaysa halkaa micno weyn baa ku jira eeg rasuulku wuxuu kala qaaday addiin waalkhuluq diintii iyo akhlaaqdii micno weyn baa ku jira oo waxaa laga yaabaa inanka ku soo ardaa dhigaya inantaada doonaya inuu yahay nin deeqsiya aftahana oo geesiya oo xishood badan oo khiyaara inuu yahay oo akhlaaq wanaagsan laakiin salaada ma tukado laakiin diinta ma ogolo waa mulxid ودينتي واحد بدن بكسر هرشيدا بدن ما لده حكوا ترميس ميل بكا أرنيه وقف قريب كقاون شركيس أما قف كاني أرداغا كوسور ديجي إن أنت هذا كوسور أرداغ ديجي وقف صلادي تكنا يا سنة يا فرض قرآن كي حفظ سن قائم الليل وإن خير قباء توصلوا هجاكسن لكن هو بخيل كوب شاه مش بيو لكن هو دياه قعنت هو ما ديجيو لكن هو أفحيه هاي الله هذا يقف وضح الله وعيتما يا حبكوا ريبي ماي كاسميل بسنا كأهدين وإن قفكوا أخلاقنا وعنتها دينتنا وعنتها لبضع سهل يسكو إيجيا حديث ده الليلين لبضن بعد عيا النبي صلوات الله والسلام عليه لبضن يا دعيا وحيابها شريعة تلمانتي وحكم إذا مهركة أي كم إذا جورك يحكم تيسا مهركو شريعة حد ما يصنعين وبضن كرا ويران كرا لكن شريعة واحد تلمانتي مهركة كيري إنه فائدة بدنية مهركة مركا لقالية oo meher qaaliya laga dhigo qoyskii asbaab badan iyo mushkilaad badan buu keenaa shariicadu xad uma dhigin intaas lama dhaafin karo inta lagama kordhin karo shariicadu ma oran laakiin shariicadu waxay tilmaantay in ka yari uu wacan yahay khayru sadaaqi aysara meher waxa ugu khayr badan ka u fudud buu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam haddii la qaaliyeeyo meherkii oo inantu tidhaahdo 10 kun oo meheraan u baahnahay kun waxaan u baahnahay shoobina kun waxaan u baahnahay koofeera kun wax 2 kun oo gawaadhiya hool 3 kun lagu kireeyo
intaan laysba soo gaarin bay 20 sii socotaa oo aan laba calfanba dee soo ma aragti bay 20 sii socotaa meherka sidaa loo qaaliyeeyo mushkiladda ka iman kartaa maxay tahay mushkiladda ka iman kartaa waxay tahay meherka marka la qaaliyeeyo doobabku inay bataan rag iyo dumarba dadkaba doob bay u badanayaan waayo dee ma guursan karayo ninku hadduu meherku qaali noqdo ama inantu ay wax kala eegtoo tidhaahdo dee anigu waxaan doonayaa nin guri weyn oo ganjeel leh gaadhi siraadan looga furo albaabka ku soo xareeyo ka soo saara baan doonayaa isna hadduu yidhahdo inan waxaan doonayaa reerkoodu aqal leeyahayoo badhna dhoofsan yahay badhna dalka joogo oo heer ladanahoo xawaaladaha iyo kambaniyada u kala shaqeeyaan doonayaayo sidaa hadduu yidhaahdo suuragal maaha soomaalida waxay tidhaahdaa guurku waa dab saar iyo dab badhi saar iyo badhi dab saar bay soomaalidu tidhaahdaa dab saar waxa weeye bay yidhahdeen waa laba sabooloo isu tegoo isguursaday dab badhi saarna waxa weeye nin sabooloo reer ladan dee u hoydo u gale badhi dab saarna waxa weeyaan nin ladanoo reer saboola u galay bay yidhaahdeen odayaashii hore markay mahmaahayaan dhaqanka soomaalidu waa muhiim aan dhaqankaaga wax ka taqaano laakiin shareecadu waxay ilaalinaysaa diinta iyo akhlaaqda iyo qaabka qoyska nolosha iyo wax badanoo ka mid mushkiladaha ka iman kara waxaa ka mid ah qofku inuu ku dhaco darsigii xalay sheekh doctor siciid gelayay stress baa qofka ku dhacaya markuu guursan waayo shahwa qofkan jirkiisa ku jirta waxbuu cunayaa waxbuu cabbayaa khaasatan reer magaalku afkaba ma qaadaan dee quraacda iyo qadada iyo cashada 5 jeer oo kale u dheer waxaanoo sharaaba waxaanoo caynkana kaajaajaada la cunayaa qofkiiba dee shahwa jirkiisii badan baa ku jirto meel waxaan kusii daayay u baahan yahay haddii marka uu xaaraantiina waa muslim oo iska ilaalinayo guurkiina uu qofkii guursan waayey stress baa ku dhacaya wuu isla hadlaya qofku waa qarwaya waa riyoonaya waxa weeyaan qofka nooc kale sidiisa uu noqonaya inantiyo ninkiiba ciladaasi way ku imanaysaa marka dambe waxay keenaysaa qofku inuu sameeyo xaaraan inuu ku dhaco walciyaadu billah amraad nafsiya ku iman kara waxaa dhacaysa in marka doobnimada lagu weynaado taacada waalidkaba in laga baxo oo inantuna waalidka maqli weydo inankuna waalidka maqli waayo ee annaga hay maaginoo hay canaananoo socodkayga iyo soo gelisteeda iyo tegiddeeda iyo ciddaan la socdo maxaa kaa galay 30 jir baan ahay meelma yar baad imooda taacada waalidku ka baxaya qofkii de wuxuu soo arkayaa ninka qofka weynay 30 jirka ee xaafadda laxooxda ka cunaya weeye oo meel lagu dhaafi waayo mushkiladaha ka iman karay ka mid tahay waxyaabaha ka iman kara waxaa ka mid a in qofku uu noloshii iyo deegaankii uu ku jiraba uu noco oo ka dhex baxo ama uu qanci waayo qofku inaan guursadaan doonayaa buu ku leeyahay 10 sannadood buu guur raadinaya mana guursanayo marba wax buu eegayaa hadday inan tahayna 20 qof baan wada hadalnay oo iqancin maayo isaguna wuxuu leeyahay mid iqancisan waan waayey waxaad aragtay ummad waddanka jooga ee diin iyo dadnimo leh ma qancayaba qofka marka dambe waxaa ku dhacaya ya'si iyo quusasha qofka ku dhacaysa nabigu sallallahu alayhi wa sallam wuxuu tilmaamay in guurka markaad guursanayso wax la yidhaahdo soomaalidii hore isticmaali jirtay gola kaga kac inaadan inanta u mehersan meherku intaa markay sheegato waar kolay la siin maayo mehri buu odhanaya inaad wax badan ku mehersato aadan awoodi karayn waxaan waa dayn lagugu leeyahay iyadaana xaq u lahoo weligeedii waxa weeyaan xaq uma laha iyadaa xaq u leh sidaa awgeed ba waxaa dhacda oo maxkamadaha laysula yimaada mararka qaarkood qadiyaadka qoysaska ka dhacda in ninka iyo qofka dumara ay ku heshiiyeen guur oo ay tidhaahdo war meherkeennu 3,000 baynu ka dhiganaynaa laakiin golaha iyo miidiyahan doonaya inaan maqashiiye 10,000 weeye baa la odhanaya laakiin inagu waa inoo 3 golaha marka la keeno heblaayo hebel maxaa lagu meherinayaa 10 baa lagu meherinayaa oo la odhanaya hadhow buu marka la isqabto ayuu odhanaya 3,000 bay igu leedahay kuma lihiya 10 baan ku leeyahay sharciguna waa maxay inay maxay ku leedahay 10 bay ku leedahay golaha wixii looga mara kacay ee markhaatigu fadhiyeen la qoray bay ku leedahay mushkiladahaasoo kale way dhaceen oo wax jira oo dadka soo maray oo la arkay weeyaan sidaa awgeed baa nin baa saxaabadii ka midaa guursaday dadkii dan yar tahay saxaabadana ka mid ahaa markaasuu xoogaa kharashoo culus xilligaa ku guursaday inantii rasuulkaa u yeeray sal allahu alayh waali wasalam calaa kam tazawajtaha imise aad inanta ku nikaaxsatay calaa 4 awaaqin 4 uqiyadood uqiyadina waa 40 dirham oo 160 dirham baan ku mehersaday inanta nabigu muxuu ku yidhi sal allahu alayh wasalam calaa 4 awaaqin 4 uqiyadood baad ku mehersatay kaannamaa tanxituuna alfida
min cardi hada aljabal waxaad moodaa fidada iyo qalinka inaad ka soo qoraysaan buuraha baasha ma buuraha laga dhalinayaa waxaydina awoodin isku qaadina buu rasuulku tilmaamaya salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh nikaaxa marka la xidhayo marka nikaaxa la xidhayo shareecadu way adkaysay iyo caqdiga ama af soomaali ama af carabi wixii la doona ha lagu xidhe goob loo dhan yahay in markhaatiya fadhiyaan oo laba markhaati fadhiyaan in lagu xidho oo la yidhaahdo waan kuu guuriyey waan kugu nikaaxay waan ku milki siiyey wiilasna waan aqbalay guurkeedii waan waafaqay raalli baan ka ahay sidaa qabuul iyo iijaabkaas inuu dhacay shareecadu u xidhay ama carabi ha laga dhigo ama soomaali ha laga dhigo wax la fahmi karo xaadiriintu ay fahmi karaan inuu guurku ku xidhmaa laba markhaatina waa in la helaa laa nikaaxa ilaa biwaliyin laa nikaaxa ilaa biwaliyin nikaax ma guntamaya buu nebigu tilmaamay sal allahu alay ali wasalam weli in la helo weligaasoo goobjoog ah oo meeshii saxaabada rasulka sal alay wasalam ilaa 32 saxaabi xadiidkaa ka wariyey imaam albayhaqi wuxuu ku daraa washaahiday cadlin iyo laba maraga oo cadaalada meesha waa in laga helaa maxaa meeshii ka baxay waxaa ka baxay waxaan meherkan hoosta la iska mehersanayo oo wadaad yaroo fiqi duura ah ta 100 kun loo dhiibo hoostaa looga mehersanayo inantii oo hadhow marka ay tiraahdo waa lay qabaa aniga ama la arko iyadoo dheregsan oo tiraahda maxaa ku helay markii la yidhi dee waa lay qabaa ay tiraahdo khalad cadiim wax saxa ma arrintaas sidaa awgeed arrintaas shareecadu ma ogola in markaa la muujiyo guurkii baa la rabaa oo dad baa dhalay oo ku tabcay in la weydiisto weligeeda ayaa sharci ah rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayhi nikaaxan weli lahayn aqbal ma aha wax soconayana maaha nikaax in la muujiyo ayaa sunnaha ka mid ah waxyaabaha bannaan shareecada oo raggu sameeyaa jira laakiin laga fiican yahay waxaa ka mid a qodbasirada wax la yidhaha qodbasiro ragga qaar baa baqayo islaanta ka baqaya weyn islaam buu marka hoostaa wuxuu leynaa heedhe maalintii isma naqaano habeenkii baynu isu soo gudaynaa hoostaasuu ka meherinayaayoo habeenkii unbuu leeyahay burcan qabanaya boora baan qabanaya xaggaasaan u kacaya tabliiq baan raacaya 3 cishaan baxaya meelna uma socdaa dogow waa dusayaayoo xaggaanu ka wareegaya dhuumasho dhabarku muuqanaya dhuumasho maaha ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala fain khiftum anlaa tacdiluu faesh fawaaxida haddaad miskiin tahay oo mid keliya mooyaane aada wax kala awoodin middaada agteeda ka wardi markay xaydo iskala xayd markay umusho iskala umul halkaagaa dul fadhi haddaad laakiin nin xil qaadi kara aad tahay oo xaajadan qaban kara oo aad dumarka u cadaalad samayn karayso ood noloshoodii iyo dhaqaalahoodii iyo dhaqankoodii iyo maamulkoodii cadli u samayn karayso 2 iyo 3 guurso in la dayactiraa dumarka loo baahan yahay raggan way ka badan yihiin 10 laab raggii colaadaha sokeeye iyo xabad iyo dagaal baa laastay aakhir zamankana xagga dhalashada ubadka dumarka badanaya sida nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam ilaa ninku uu tiro aad u fara badan oo dumar uu mas'uul ka noqdo iminka u fiirso reeraha degan ee dhaqani islaamaha markay umulaan 10kii qof ee dumar ee umushaa 8 ka mid ah hablay dhalayaan waxa laga yaabaa mid ama labo inay inama dhalaan baa dhici karta wax calaamaadka aakhir zamanka lagu yaqaan hadday hablu intaa joogaan oo dee ninku mid kaliya iska guursado dumarka aan ogoleen guurka labada raalli hayga noqdeen aan maxaan ku idhaahdaa ninku mid kaliya u guursado inta kale yaa dayactiraya kuwan xuquuqul insaankan ka hadal laa yidhaahda weli maaratan iyagoo le dumarka 2 iyo 3 la guursado dumarna waa u hadlaynaa bay yidhaahdeen weligoodna arki maysa iyagoo leh dumarka guurkooda ha la badiyo si loo dayactiro adna waxaa lagaa raaco cadaalad samayso man kaanat lahu imra'ataan famaalat ilaa ixdaahumaa jaa'a yowmu alqiyaama washiquhu maa'il ninka 2 dumara iyo ka badan leh oo mid bustaha dul dhigto xaggeeda isu barbariya aakhire wuxuu imanayaa isagoo docu janjeera sida qof faalij ku dhacay waaxi qalalantee buu imanaya islaam baa odaygeedii intuu la guursado waxay aragtay tii yarayda uu iska dul fadhiyo waa xilligii miyiga la deganaa dadka badankiisu cishadii dambaa berberaa loo soo safri jiray reer odayaashii oo adhiyo daabaxa soo kaxeeyey daabaxu dhallinyaradu ma yaqaana ragga weyn baa garanaye riyo daabax ayaa soo kaxeeyey iyo awrtii oo sadcaal ahoo reerkii raashin iyo adeeg loo doonayoo berbera lagu soo socdo ayaa islaantii weynayd baa ka daba timi war xaaji aadanow yeera sug markii raggu anbabaxay ri daabaxay jiidaysaa marka waxay tiri war xaaji ridaa kaxeeyo qalbi ii soo sii qalbi waa soo kaxeeyey arigii baa berbere la keenayo waa la faasaxay raashinkii iyo wixii baa la dabcay ninkii wixii wareedhe qofkii dumarayd maxay ku tidhi rida qalbi ii soo sii
nin weyn baa la socday ragga sadcaalka ee safarka ah markaasuu yidhi war adeerow islaantii maanta markaan cishada dhawe soo soconnay waxay tidhi ridaa kaxeeyoo qalbi ii soo sii war annagaa garanaynay fadhiisuu ku yidhi annagaa kuu sheeginay islaantu waxay ku leedahay in dhoweydba qalbigaagu iima soo jeedine war ridaa qaadoo qalbiga ii soo jeedi ridaa qaadoo dee muquuno kale ma hayso waa islaanta miyiga joogta ee riyaha la joogtaa maxay tihi odayga ridaa muquuna uga dhig ee waxaad yeeshaa buu yidhi innaba ma xusuusanaysaa maryihii arooskeedii ma xusuusanaysaa aad u yimisa boqor iyo dhacle wax la yidhaahdaa la xidhan jiri waaga odayaasha garanaye ma xusuusanaysaa haa arooskeedii maryihii aad ku aroostay midabkaa laftiisa u iibi kabana u iibi qofka dumaree miyii joogta kaba loo keeno ama inanka yaree qayd loo keeno hayaa dadkaba kuma jirinba dadku iska dhibaataysnaayo maaragtay islaantiiduu kaba iyo u siiyey ridii boqor iyo dhaclihii u siiyey maradii caddayd waa qaado wuxuu yidhi markaad reerkii tagto oo gurya gashidna ardaageeda fadhiiso deegaanka ka bilow isaga u dhiib islaantaasi markaad u dhiibto oo aad u sheegto waxaad u sido ma mashxaraday mise aamustay oo halkaa iska dhigta hadday mashxarado qalbigii u bogsay haddayse mashxaradii weydo waxbaa ka siiya wuxuu soo dhaadhacay oo wuxuu yimid reerkiiyo islaantii buu aqalkeedii ku horreeyey iyadoo ardaagii fadhido dab iska shidanayso heblaaya oo soo khayr maaha kaalay bal alaabtan iga qabo waa maradii arooskaagii mara iyo kabo aan kuu soo iibshay aday iska leh alalaas bay ku dhufatay lalalala meesha dee khalaas cudurkii shuushkii baxyo wey shuushkii baxyo bogsay cudurkii marka qofku inuu fahmo qoyska noloshiisa waxaa khalada soomaalida mahmaahida reer isqaba colna maaha nabadna maaha bal codna maaha nabadna maaha bal fasir muxuu yihi waa guuraama degede waa reer aan deganayn dadku ama waa colowaa ama waa heshiiyaa meel u dhaxayso reer muskooda cid kuma noolaan karta dee waa inuu dadku nabad ku wada noolaada oo jacayl ku wada noolaada oo isfaham ku wada noolaada waa caynka sidaa markay tidhaahdo layna kama heleen dalool ay ka soo baxdo odaygu hadduu islaantiisa camcamiyo waa kufsaday kuba dhacday islaan inay tidhaahdo ama nin inuu yidhaahdo yur baa la odhanaa naga aamo waayo reerku waa wada dhaqan yahay dee sidaa awgeed waxaa muhima shareecada in guurka la iclaamiyo guurka aclinu nikaax guurka muujiya buu nebigu sal alay slam waa shareeca guurka ha la muujiyo aroos ha la dhigo dumarku gaar ha isugu baxaan ha baraanbureen laakiin muusig iyo waxyaabaha maanta innagu aynu samaynayno in muusig la garaaco oo dumarkii sodohihii iyo hablihii iyo jaarkii dadkii isu wada yimaadaan oo maryo khafiifa la xidho oo timuhu qaawayin inamadii wax duubaya kaamaradu dhex boodayaanoo miidhiyihii malaayiintu daawanaysa lasoo dhigayo oo halkaa la wada jaasayo shareecadu waxaa ma qabto shareecadu waxay qabtaa guurka labada qof ee isguursaday nebiga sal in loo duceeyo baaraka allahu lak baaraka calaykum jamac baynakuma fii khayr ducadaas nebigu salawatu llahi wasalaamu calayhi zaynab markuu guursado la aqalgalay hadiyad buu usii qaaday anas ibnu malik oo la socday wuxuu leeyahay markay aayadda xijaabku soo degi doontay rasuulku sal allahu alay wali wasalam ahad zaynab ayaa rasulku sal slam markuu guursaday waxaa rasuulku sal allahu alay wasalam xiis weel wax ku jiraan raashina bay rasuulka siisay isaguna sal allahu alay slam rasuulku waa salaamay rasuulku sal allahu alay wasalam waxaa sunnihiisa ka mid a galbinta iyo guurka ninku markuu reerka habeenkii u hoydo in maxaan ku idhaahdaa uu reerka salaamo oo inantii maxaan ku idhaahdaa markaad u soo hoyato inaad salaanto oo aad bariidiso oo sheeko iyo war iyo hadal iyo hawlo badani horreeyaan ayaa sharci ah umu salama waxay leedahay radi allahu canha lama rasuulku sal alay slam markuu ii guursaday oo ii soo galay weli islaan carmalana way ahayd sallama calaya way salaamay assalaamu calayki ya salama iska war salama sidee tahay rasuulku salaan iyo bariido ayuu kula soo galay koolkoolin iyo maxaan ku idhahdaa waxsiin iyo waxyaabahaasi waa ka mid xadiiska caaisha radi allahu canha asmaa binti yaziid alansaariya waxay leedahay rasuulku markii caaisho loo hoynayay bay ka sheekaysaa waxay tihi inii qayantu caaisha waxaan u qurxiyey qayantu bimacnaa zayantu waxaan u qurxiyey caaisha rasuulka sal allahu alay ali wasalam uma ji'tuhu fadacawtuh markaasaan u imiye waxaan ku yidhi kaale haddaba inantii iska arag waa diyaare rasuulka ilaahayow kaasuu rasuulku noo yimi salawaatu ullahi wasalaamu calayh fajalasa ilaa janbiha docdeeduu fadhiistay nebigu sal allahu alay wasalam haruub caana ku jiraan oo meesha yaalo rasuulku uu meesha loogu diyaariyey ayuu soo qabsaday oo caanihii buu yaro kabaday dabeetana waa u dhiibay fakhafadat ra'saha wastaxyat
intay foorarsatay bay xishootayoo caanihii qabsan weyday markaasaa waxay tidhi asmaa waxaan ku yidhi intaan maagay khudii min yadi rasuulillaah ka qaado caanaha rasuulka gacantiisa calayhi salaatu wasalaam faakhadat fasharibat shay'a way qaadatay wax ka mida caanihii way cabtay inagu maanta maxaynu ku bedelnay waxaynu ku bedelnay waa aqalkii arooska waxa laga hadlay inagu waxaynu ku bedelnay meeshii xafladii hudheel weyn baa la xidhayaa waxaa la keenayaa waxyaabahan macmacaan ee maaragtay dabaqa la dhisay aad moodid ee midab shaad kale le baa la keenayaa halkan uu taagan yahay inantu halkay taagan tahay dabeetana halkaasaa ummaddii ku soo ururaysaa keegga ama waxaa macaan wuxuu yahay anuu garanba maaye waxaasaa la goynayaa kolle wax macaan un bay la tahay waxaan baa la goynayaa dabeetana dadkii oo arkaya buu leeyahay afka uu gelinaya iyaduna afkay u gelinaysaa waa loo sacbinayaa shax wax fiican la sameeyo kale mararka qaarkood waxaa dhacaysa inay isdhunkadaan dadka hortiisa mararka qaarkood waxaa dhacaysa ka diriyo dibi dhan ay noqoto labadoodii wada jaasaan oo digdamta halkaa dadka dhexdiisa baa dhacaysa war idinku way ismudan tihiinoo way isu timaadeene cunna isla cunka iyo af isugelinta iyo arrimaha ka dambeeya maxaa annaga naga khuseeya daawashadooda maxaa dadka laga tusayaa waa wax aan waa dhaqan laga soo gaaray reer yurub iyo gaalo baa laga koobiyeyo sidiisii baa la keenay islaamku waxaa ma ogola dhaqan baanu leenahay diin baanu leenahay xishood xidid iyo xigaal inantan dad baa dhalay aabbay leedahay hooyay leedahay walaalay leedahay xidid bay leedahay war goormaa sidaan loo ba'ay xishood baa loo baahan yahay haddii guurkii la isugu yimaado xafladdii la duceeyo khalaas aqalkiina markaa wada tagtaan oo la isugu kiin hooyo allah isugu kiin barakeeyo waa idinka haddaad qatooyo ku seexan lahaydeen haddaad wax wada cuni lahaydeen waa sha'nukum wa amrukum idinka idiin taallaa laakiin xishoodka iyo diinta in lagu dadaalo dhaqamada shisheeyaha ee dhaqankeenna wacan iyo diinteenna aan ku wacnayn waa inaynu iska daynaa walaalayaal sunnaha waxaa ka mida qofku inuu xaaskiisa markuu u soo hoydo 2 rakacood oo sunna uu tujiyo saxaabadii salafku way samayn jireen uu dabeetana u duceeyo ducada waxaa ka mid ah xadiiska ibn cabbaas uu tilmaamay ayaa ka mid ah rasuulka sallallahu alayhi wasallam caaisha radiyallahu ta'ala anha markii ugu horeysay bay tiri caaisha qolku rasuulku igu soo galay isagoo cadayday oo cadayanayo ii soo galay marka adoo afkaagii nadiif uu yahay oo carabkaagii nadiif yahay oo cadayday inaad qoyska iyo reerka u soo gasho waxaa ka mid ah ducada inaad u ducayso reerka marka aad kulmaysaan waxaa ka horeeya inaad gabadha u ducayso oo aad soo hor fadhiisato oo ilaahay subxaanahu wa tacaala aad u barido ayaa ka mid ah ilaahu khayrkeedan gabadhan ku weydiisanaya khayrka iyo akhlaaqda wanaagsan ee uga dabci dhigtay baan ilaahu ku weydiisanaya wixii dhaqan iyo akhlaaq xunna ilaahu waan kaa magan gelaya wamaa ilaa dalik waxaa ka mid ah dhaqanka wanaagsan ee guurka laga rabo in labada qof ay iswaraystaan intaan jimaac iyo unkasho iyo hawlaha la gelin in la iswaraysto oo aynantu tiraahdo walaal nolol weyn mustaqbal dheer haddii alla yidhaahdo qoys baynu dhisnay wax weyn baynu rajaynaynaa sida aynu u wada noolaan lahayn inaanu ka wada hadalno waxa aad neceb tahay in lagugula dhaqmo waa inaad ii sheegtaa waan kaa ilaalinaya aniguna waxa aan necbahay oo aan wanaagsanayn sharciga iyo dhaqanka waa inaan kuu sheegaa saad iiga ilaaliso sidaa marka la isuu fahmo noloshii way hagaagaysaa nolol dhisan bay noqonaysaa oo toosan ayay noqonaysaa shareecadu waxyaabaha ay tilmaantay ayay ka mid ducadaa ka mid ah marka labada qof isu yimaadaan inta aan gogasha hawsheedii la qaban waa in la duceeyaa oo rasuulku sal lla alay slam wuxuu yidhi ninku markuu xaaskiisa damco waa inuu ducaystaa allah bismi illaah inuu yidhaahdo ilahu anigoo magacaaga ku bilaabaya baan reerkayga la kulmaya allahuma janibna shayطaan wajanib shayطaana maa razaqtana ilahu shayطaanka naga foge haddii dhexdayada aad ilmo qadarto caawa inuu naga guntamana ilahu shayطaanka ka ilaali soo maydanaan maqal hay-adahan caafimaadku inay yidhaahdaan tallaalkii ha la istallaalo 6 cuduroo dilaaga ah soo maydanaan maqal xadiiskaasi wuxuu sheegayaa tallaalka shaydaanka carruurta laga tallaalayo ilmuhu yaanu shaydaanku kula wadaagin haddaad bisinka u qaban weydo dee islaantii uu kula maamulayaa adiga isagaa ilmihii wada dhalaya hadhowna wax derderan baa meesha ka soo baxaya oon la fahmi karaynin illee lugta waa lagula wadaagaay haddaad laakiin bisinka u qabato xitaa aaggiinna ma soo marayo markaase rasuulku wuxuu lehy sal allahu alayh waali wasalam fain qudira baynahumaa haddii dhexdooda ilaahay ilma qadaro lam yadurahu shayطaanu abadaa weligii ilmaha shayطaan caqligiisa iyo diintiisa iyo dadnimadiisa waxba ma yeeli bu nebigu leh sal alay wasalam haddii ma ninka keliya inuu akhriyaa laga rabaa mase inaantuna waa inay akhridaa waa intuusaw ilaawaaba ila isagaa kaa hunguri badane adigu akhri
yaan cidla baabahda u daranaya cidla lagu dhicin marka akhri ama xusuusi tacaawun cala albiri waataqwa war ducada maynoo akhrisa horta waluu yara kaadi dhaho hadduu markaa xusuusi waa tacaawun cala albiri waataqwa waayo meeshan ma aha wax ciyaara wax weyn oo mustaqbala laga raa ilmuhu waa cimrigaagii oo dheeraaday hadduu ilaahay ku siiyo subxaanahu wa tacaala berri kuu soo ducayn lahaa rabbi ikfir lii waliwaalidaya warxamhumaa kamaa rabbayaanii sagiira ku odhan lahaa waxaa muhim ah in guurka ka hor waxaan u jeedaa gogasha ka hor inay ka horayso mulaacaba mulaatafa rasuulku sal alla alay slam uu samayn jiray wax ka horeeya oo hordhac ah inay jiraan laakiin sharciga waafaqsan iyo dhaqanka wanaagsan waxyaabaha gaalada laga soo koobiyeeyey in layska ilaaliyo ayaa muhim ah waatuu rasuulku jaabir ku lahaa aad la ciyaarto oo kula ciyaarta oo maxaan ku idhahdaa kula qosasha oo aad la qosasha innagu dad adag baynu nahay soomaali haddaynu nahay dadkan yareer hadda reer magaalka haddii aad warguma hayee dadku waa way adadeg yahay ragguna waa adadeg yahay waxa weeyaan dumarkuna waa adadeg yihiin dadka hore adayga baasha in laga daayo la dabciyo oo baraka ciyaar iyo sheeko iyo qosol iyo mustimtaac iyo wax ka horeeyaan waxay keenaysaa wax badan in qoyskaasi si fiican noloshiisu u hagaagtay keenaysaa waaye shareecadu waxay tilmaantay meesha la ogol yahay oo xubinka taranka ah meelaan ahayn hadduu ninku reerkiisa ka hungureeyo uga tago waa malcuun buu nebigu yidhi sal alla alay wasalam ilaahay nacdashiisa ha ku dhacdo xubinkaa taranka ee ubadku ka soo baxo meelaan ahayn qofka reerkiisa uga taga buu nebigu yidhi calayh salaatu wasalaam shareecadu waa xaaraam marka qaabkii la doonaba ha loo dhigo laakiin waa in xubinka un la beegaya meel kale shareecadu ma ogola rasuulkuna waa nacdalayba malcuunun man ataa imra'atah rasuulku waa nacdalay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waxyaabaha shareecadu diiday waxaa ka mid ah in qofka dumara iyadoo xayd ah loo tago waayo markay daahir noqoto bay shareecadu ogoshahay in loo tago xayd markay tahay shareecadu waa diiday waxyaabaha shareecadu waxa weeyaan ay tilmaantay waxaa ka mid ah ninku markuu xaaskiisa u baahdo xaaskiisa waa meelaha hadda layna ka duqaynayo waxaa ku soo socota hadda waxaa la yidhi markuu ninku xaaskiisa u baahdo oo ay tidhahdo war ina ka daa ma kaaranida ina ka daa hadday tidhaahdo oo isaguna u baahdo waxaa la yidhi waa kufsi socaynka lama odhan maxaa ku xiga ma taqaana waxaas nin baa waxaa la yidhi cigaal shidaadii bay ku sheegaanoo halkaasaa subxaanya ka martay isagoo hurda markaasuu oohin la fadhiistay wabaa war maxaad loo weyeysaa warnimayo waxaan ka baqayaa buu yidhi meeshaasi inay halaq marayn noqotaan ka baqayaa buu yidhi abeesooyinka iyo baranbarada iyo jiirka iyo balaayadu martaan ka baqayaa meeshan halaq marayn baa ka soo socda berina waxaa ku xigta in la yidhaahdo qofka dumaray markay cadhooto ninkeeda way furi kartaa oo dalqadu waa u qaybsan yihiin labana isagaa leh midna iyadaa leh waxaan waxbaa soo socda meesha waxbaa soo socda maalinba geer baa lagu gelinayaa marka kani hadduu ku galo war waa qaateene u raaciyaa la odhanaya u raaciya mar mid baa lagu raacinaya waa inaad marka diintaada iyo dhaqankaaga wanaagsan la socotaa shareecadu bal siday u dhigta eeg rasuulku wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh idaa daca arajulu imra'atah ninku hadduu xaaskiisa u yeedho heblaayo kaale hadduu yidhaahdo ila nin iyo xaaskii wuu isaf yaqaanaane kaale hadduu yidhaahdo oo ilaa firaashihi firaashkiisa hadduu ugu yeedho ii kaale yidhaahdo faabat an tajii oo ay diiddo inay u timaaddo lacanatha almalaa'ikatu xataa tusbix malaa'igtu way nacdalaysaa hadday habeen tahay ilaa waagu intuu ka beryayo waa imisa saacadood habeenkii 10 saacadoodoo nacdala xamili karta adigu oo malaa'igtu kugu wardinayso nacdali kugu dhacday nacdali kugu dhacday nacdali kugu dhacday 10 hours maad ka bixi karaysaa midh baadan qaadi karayn be 10 saacadood bay kugu soconaysaa taas waaba firaashkii iyadoo aqalkiis ka joogta hadday roodhidii dubayso ama laxooxdii ama qadadii ama quraacdii ama cashadii karinayso oo dabkii ku fadhido iyo dherigii bislaynayso waxaa la mid ah hadday maryihii maydhayso waxaa la mid ah hadday aqalkii masaxayso waxaa la mid ah haddii ay markaa maxaan ku idhaahdaa labisatay oo u socoto inay suuq wax ka soo iibsato u yidhahdo maryahayna ka yar dhig waad gashan doontaa ee kaale iskeensi u yidhaahdo ka soo kac dabka ii kaale u yidhaahdo oo ay diiddo waa saasoo kale nebigu tilmaamay salawaatu ullahi wasalaamu calayh waa saasoo kale
ninku xitaa xaaskiisa markuu mehersado isagoon la aqalgelin dadka qaar baa waxay kula taliyaan hablaha kuwa la saaxiibka ah ama qoysaska qaarkood naa inta uu ku aqalgeysanayo yaanu mara kaa rogin hadhow gabadhii inantii markuu ninku yidhaahdo heblaayo aynu kula nooyta war ma jiraan waxa ilaa adi aqal aynu wada tagno waxba ma jiraan dee ninkani waxaan isaga iska leh hadduu jumlo iyo tafaariikh ka dhiganayo isaga iska leh wax cidi maxaan ku yidhaahdaa shareecadu u bannaysay weeye waxaa marna jumla loo qaataa oo marka aqalku uu joogo waa la tafaariiqaysan karaa soo maaha dee haddii aad markaa ka baqatid u fiirsa hadda oo wax xaqiiqa ama waxaa ugu qoslaysaa inay jirtaad ogtihiin moogta oo wax xaqiiqa oo jira haddii aad u baahato xaaskaagii oo ay tiraahdo war heedhe war dee waynu ismehersannay haddii aan uur igu soo baxo soo hadhow laygama shakinayo ninkii kulama aqal geline xaggaad isku aragteen majin baa ku afuufay haddii la yidhaahdo waa inay ogeysiisaa saaxiibteed iyo walaaladeed tidhaahdaa hadda la socda wadaadkii baanu ballansannahaye waa ka ubargeli waxaaba dhici karta soo ma aha markaad ismehersateen idinkoo aan aqal gelin inuu dhinto sooma dhici karta ila wadku meel ma jireen imisaa intay ismehersadeen iyagoo aan aqal gelin dhintay waa dhici karta soo maha hadday saasi dhacdo oo ninkani wixiisii isagoo sii tafaariiqaystay gabadhii uur yeelato isna uu dhintay hadhow waa la isweydiinaa ninkii kumaba dhisane uurkan waa maxay soo maha waa inay sii wargelisaa hablaha walaaladeedii wixii la mid waxaa jiray inan saxaabo ah oo mu'miniin qiimo badan ahaa inanta waxaa la ohan jiray jamiila binta cabdillaahi ibni ubay ibnu saluul cabdullaahi ibnu ubay ibnu saluul man ra'iisul munaafiqiin inankana waxaa la ohan jiray xandala ibna caamir waa ninkuu rasuulku u bixiyey alfaasiq waa ninkii masjidu diraar dhismihiisa ka dambeeyey baa dhalay labadaa qof ee isqaba inanka iyo inanta laba munaafiqoo waaweyn baa kala dhalay inankii baa u yimid gabadhii wuxuu ku yidhi inantii heblaayo berrito dagaalkii uxud baa dhacaya naftaydu waxay iigu sheekaynaysaa berri dagaalkaa inaan ku baxayo oo aanan ka soo noqonayn waxaan doonayaa caawa inaynu sii aragno markaasay tiri waaye bal aan hablaha usii sheego walaalada iyo dadka familka qaar u sheego way u sheegtay way kulmeen aroortiiba dagaalkiibaa hore laga galay isagoo janaabadii qaba halkiibuu ku dhintay ku shahaado qaatay inan baa uurkeeda galay taariikhda waxaa loo yaqaanaa ninka maxay ghasiilul malaa'ika ninkii ay malaa'igtu maydhay rasuulku wuxuu yidhi waxaan arkay xandala oo malaa'igtu intay maydkiisii qaaday daruuraha ku maydhaysuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam inan baa calool galay cabdullaahi baa loo bixiyey 7 wiil oo quraa xaafidulqur'aan u dhalay marka haddii uu hawshaasi timaado walaalaha iyo asxaabta u sheeg waa intaasoo isagoon kula aqalgelinba ajasha u timaadaa waa intaasoo ilma guntamaan shareecadu ma diidayso inaad u sheegto miyay noqonaysaa sirtii sariirta inaad faafisay jawaabtu waa maya waxaa sugan axaadiidta nebiga sal allahu alay wasalam in umu sulaym anas hooyadii inankeedii inuu dhintay oo bukay abu talxa u dhashay inankiioo mayda ayaamana bukay baa abu talxa yimi zayd ibnu sahal ansaari markaasuu inankii ka warran iminkuu ugu wanaagsan yahay bay tiri halkanna wuu dadan yahay waa maydo waa yaal cashay u samaysay cashadii buu cunay way isdiyaarisay way kulmeen markii hawshii dhammaatayba waxay ku tii wareedhe inankiioo mayda inoo yaale inanka aaskiisii qabanqaabadiisii gal markaasuu maxaad saa iigu gelaysaa markaad i wasakhaysay maad ii sheegtay marka hore caynkan wuu canaantay waa durduray rasuulku u tegay aroortii markuu waagu beriyey rasuulka ilaahay oo habeenkii xalay ahaa qoftii umu sulayme tay ugu dhigtay haddaad og tahay lagama sheekayn karayo anigoo meyd aqalka iyo dhaqanka carbeedna ceeb bay ka hayd arrintaas ninku inuu dumar u baydho isagoo meyd u yaallo aqalka sidaa iyo sidaa iyo sidaasa yeeshay rasuulku waa ka dhegaystay warkii jawaabtii uu nebigu siiyey maxay noqotay acarastum leyla war habeenkii xalay ahaa ma is aroosteen buu nebigu yidhi ha waa is aroosnay baaraka allaahu fii laylatikuma habeenkiinni allah idiin barakeeyo inan baa halkay ku calool galay marka sharcigu ma diide inaad tidhaahdid saaxiibka war caawa isu iman mayne fardu kifaayaan iska soo ridaya reerkii baan aadaya ama maxaan ku idhaahdaa iyadu ay tidhaahdo odaygii baan caawa la soo qaxwaynaya waxba sharci maaha ila waxba wax faahfaahsanoo tafaasiila kama aadan sheekayn waa bannaanta shareecada islaamka laakiin haddii laga warka sheekoodo oo inanku yidhaahdo markuu guursado saaxiibkii reerkii baan xalal la kulmay
halkaa intaanu ka dhaqaaqnay baan niyo hargeysa tagnay sheekadii dabiya dacalba ka galo oo iyadu ay ka sheekayso tiraa jigjiga yar baanu ka dhaqaaqno boore baanu tagnay waxbaba aan laga hadhin sheekadii la wada waadixiyo rasuulku wuxuu yidhi labada qof ee isqaba ee gogashooda ka warka sheekooda buu nebigu yidhi sal allahu alayh waali wasalam waa min ashari innaasi cinda allahi yowma alqiyaama dadka ugu xun weeye ilahay agtiisa subxaanahu wa tacaala waayo dee maxaaba hadhay nin xaaskiisii ka war sheekoonaya gogashoodii ama maxaanku idhahdaa in inantu ka war sheekoonayso wax harayba ma jiraan weeye shareecada islaamku waxaasi ma bannaana oo shareecadu waa diiday ninku hadduu reerkiisu ka maqan yahay uu ka maqan yaho safarka iyo sadcaal ku maqan yahay waa inaanu isagoo guuraynayaa goor habeena reerka iska soo gelin waa inuu war iska soo horay waa soo socdaa waan soo baxay galacaa waan soo hoyanayaa fiidkii baan imanaya haddii alla yidhaa waa inuu u sheegaa waayo reerku markuu odaygu ka maqan yahay islaantu dee ninay isu qurxiso oo isu cadriso waxa ragooto aqalkii ma joogo ninkii waa maqan yahay laakiin markaad joogto dee xil baa saaran oo qofkii dumar ahayd way dadaalaysaa rasuulku markaas wuxuu tilmaamaya sal allahu alayh wasalam idaa qadima axadukum laylan falaa ya'tiyanna ahlahu turuuqa hadduu qofkiin habeen yimaado safarkiisii sadcaalkii ka soo noqdo guurayaanu aqalka ku soo gelin xataa tastaxidda almagiiba watamtashita shactha ilaa qoftii dumar ahayd ee iska nadiifiso oo ka diyaar garowdo oo ka cadarsato oo waa caynka ayay shareecadu tilmaamaysa weliimada iyo cursiga in la dhigo ayaa ka mid ah waxyaabaha wanaagsan ee shareecadu ay tilmaantay ayaa ka mid ah markuu cali guursaday faatima oo reerkii la dhisi lahaa baa rasuulku sal allahu alayh waali wasalam wuxuu ku yidhi innahu laa budda lilcurs min waliima lagama maarmaan in weliimo la dhigo buu nebigu yiri sal allahu alayh wasalam waxba uma anigaa hayo rasuulka ilahi maxaan weliimo ku dhigaa markaas rasuulku wuxuu ku yidhi sal allahu alayh wasalam oo miyaadan hayn diricii qolada xutamiyada oo niman reer bani cabdiqays ka mid ahaa miyaadan hayn maradoodii ha dee taaba iibiyo dee kharashkiisa reerka ku waxay buu nebigu yiri salawaatu ullahi wasalaamu calayh in cursiga la sameeyo laakiin waa wixii la awoodi karo wixii la awoodi karo in arooska laga dhigo iyo ducada weeyaan oo sidan iminka inagu aynu wax ku wadnaa waadhowa waxaan ka baqayaa in dadkuba isguursan waayaba iminkaaba dee khaatiyaan la kala joogaa in la yidhaahdo meherkii intaasoo kunoo dollar arooskii intaasoo kunoo dollar waxaanoo takliifo ah sax maaha sidaa awgeed in la fudaydiyo oo qoysasku wax fudaydiyaan si guurku u bato sinada iyo xumaantuna u yaraato ubad iyo taran badanna aynu u helno ummad nabi maxamed oo fara badanna aynu u noqonno calayh salaatu wasalaam waxaa ka midaan ku gebagabaynayaa waxyaabaha la gudboon qofka dumara ee laga rabo aqalka markay kusoo hoyato gabadhu waxay la mid tahay wasiirka daakhiliga ee guriga ninkuna wuxuu la mid yahay wasiirka khaarajiga marka dibadda uu ka shaqaynaya waana ra'iiskii madaxweynihii aqalka ka talinaya maxay gabadhu guriga ka qabanaysaa marka miyaad jiifsanaysaa miyay isdhex taagaysaa ma warwareegaysaayoo soo galoo soo baxbaa maxay qabanaysaa shaqada ay qabanayso in qofka marka shaqo la qoro xafiiska la keeno shaquu qabtaaye waxaan rabaa inaan tiriyo qodobo waan qodobaynayaa waan dul marayaa adilada waqtigu ii saamixi waayo mid walba inaan daliilkiisa sheego laakiin calaa ru'uusi alarqaam baan tirinayaa si maskaxda loogu qabto kow gabadha waxaa laga doonayaa ama qofka dumara ee ninku soo guursaday inay ninkeeda ateecdo wax alla wixii wanaaga oo shareecada wanaag ku ah inay ku ateecdo oo aanay dee noqon midi ku taag in arrintu aanay noqon labo inay guriga ku sugnaato oo aanay aqalka idankiisa la'aantii ka bixin ayaa la doonaya waaye saddex ninku haddii uu xaaskiisa ugu yeedho gogasha iyo firaashka inay u timaado inay xanuunsanaysa mooyaane haddii cudurdaar sharciya jiro ama xisi ah way xanuunsanaysaa oo qofka xanuun baa haya waa sax ama daahirba maaha waa umul waa xayd waa sax xanuun baa hayo way xanuunsanaysaa waa sax war waa bukaaya hawsha ma geli dembi kuma le markaa lakiin iyadoo caafimaad qabta inaanay meermeerin weeyaan qodobka afaraad inaanay aqalka u fasixin cid walba inuu isagu idinkiisa iyo ogolaanshihiisa laga hela mooyaane inaanay soomin soon sunno ah isagoo jooga inuu u fasaxa mooyaane maxaa yeelay waqtiga rasuulka waxaa dhacay nin la odhan jiray safwan ibnu mucatil la odhan jiray ayaa waxaa dhacday waa ninkii caaisha markay jiifsatay ee safarkii ka hadhay awrkiisa ku soo qaaday safwan ibnu mucatil ayaa islaantiisii uu guursaday baa ka soo ashtakootay waxay rasuulka ilaahayow xadiidka xaakima musadrak ku keenaya saddex qodob baan ninkayga kaga cabanaya waa marka koowaade qur-aanka markaan akriyo aayado ka mida way dilaa marka labaadna salaada subaxba uma kaco
goor qoraxdu soo baxday buu toosaa marka saddexaadna soonka sunnaha markaan soomo ayuu iga jebiyaa u yeedh baa la yidhi warkaale Safwaanow see wax u jiraan rasuulka ilaahay wuxuu anigu nin dhalinyaro ah baane qoftan dumara dhawaan baan guursaday iima sheegto barqadii baan soo guriya noqdaa markaan dee u baahday tiraa waa soomanahay anna kama yeele waa ka jebiyaa buu haye xagga hurdada reerka aan ka dhashay buu yidhi waxaanu caan ku nahay hurdo weynin haddaanu jiifsano iskayo inaan u kacno mooyaane waxna kicin karaba male buu qodobka saddexaad maxaad gabadha u dishaa markay qur-aanka aayada ka akhriso in badan baan waxaan ku yidhinaa qur-aanka intaasaan ka aqaanaa iidda ha iga akhrine dabeetana way iga diidday leanna waa dhangadeeyaa buu war qur-aanku waa idinka badan yahay labadiinnume wada akhrista marka aad toostana tuko salaada markaasuu yidhi uma bannaano qof dumar oo alla ilaahay iyo aakhiro rumaysan in ay soonto soon sunnaa ninkeedii oo jooga hadduu laakiin dibadda ku maqan yahay ama safar ku maqan yahay oo aanu markaas soo beegnayn dee caawa iyo maanta way iska soomi kartaa wax dhiba male waxaa ka mid a waxa laga rabo in maalkiisii hantida guriga taalla aanay saydhsaydhin oo aanay saydhsaydhin oo maaragtay daahiyadii aqalka ku xidhnaameeye oo waa bixiyey heblaayaan siiyey rooggii iyo mashamicina ma soo dhowaanba talaagadii waan bixiyey qasaaladii bixiye wax lagu cuno digsi nookin digsiyaashii meeye waa bixiyey wixii meesha riwaayad baa ka socota marka de inaanay aqalkii hantidii taallay aanay saydhsaydhin ciddii maxaan ku wax weyn marka la bixinayo waa in talada wax ka ogaada waxaa ka mid a arrimaha la yska rabo inay ubadkiisa iyo isaga iyo aqalka khidmadooda ay xil iska saarto waxaa ka mid ah in ay sharafteeda iyo diinteeda ilaaliso sharaftiisa iyo diintiisa iyo maalkiisa iyo ubadkiisana ilaaliso waxaa ka mid ah inaanay ka abaalka dhicin oo wixii wanaagsanee wacanee dhaqan iyo dhaqaalo iyo nolol wacane uu kula macaamilo inay u ogaato jazaaka allah khayr tiraado waxaa ka mid a inay isu qurxiso oo ay u labisato isu cadriso oo dee toobkii ay la joogtay jikada iyo aqalka aanay hadhow aqalka la soo fadhiisane ay xaragooto labisato innaga dumarkeennu qaar waxay u badan yihiin qaarkood in marka aroosyada iyo xafladaha la aadana si wacan loo xaragoodo ama dahaba xidhato ama dahabu ee ka xidhato ama ha xinaysatay si wacan dee ay ka marayso ku tagto aqalka markay joogtana shandada iyo kabadhku maryo aan bilo la soo saarin baaba ku jira odaygani waagii horaaba ugu dambaysay lama aragba cidaad u xaragooto isagaa ugu wacan isaguna waa inuu ku xaragoodaa garan dhammaaday iyo macuus laalaabantay waa inuu soo xidhan waa inuu wax wacan garamo wacan iyo macuus xidhan iyo wacan iyo waa inuu soo xidhaa waa inuu weli culimmada qaar waxay leeyihin waa inuu xooggiisa tusaa oo haddaad funaanad weyn xidhato aad lagu arki maayo laakiin garan garba go'a markaad xidhato dee murqahaagii baa banaanka yaalo wallahi ninkani misaalan maaha sida iyaduba dee ay iyadu le jalaabiib kuma xidhne eh waxbay ku xidhantahay sad iyo waxbay la yidhahdaa soo maha waa la iga badaya dumarka dharkoode sad iyo waagoo dhiija buuti waxbaa la odhan jiray anugu qaan gaadheeye waxaasaa bay xidhanaysaa soo maha maxaa adiga kugu raray joonyadaha dee waa inaad wax wacan xidhataa inantu ku aragta iscadrisaayo waa caynka waxaa ka mid a waxyaabaha la rabo in haddii ay ka jeebroon tahay oo ay isaga ka jeebroonto xoogaa xagga dhaqaalaha inaanay oo aqalka iyo reerka iyo biilka iyo nolosha ay la caawinayso inaanay u abaal iyo gallad sheegan mar walba waayo tawarniyo naga daabuuq annagaa kirada bixino korontada bixine maxaad nugu haysa waxyar baad bixisaa dhuxushan baad keentaa iyo biyahee baad bixisaa oo inaanay dee ku siraadin oo ka daysaa oo ay ka xishootaa oo maxaan ku waxay ku caawi cid ay wax siiso isagaa u mudan haddii uu jeebka ka liito ilaan dadku isku jeeb maaha hanti yarow hadduu yahay hanti badan aanu lahayn oo xaaskiisii iyo ooridiisii aad tahay inaad ku qanacdo waxa ilaahay qayb idiin siiyey oo aadan ku sad iyo xisaab goosan kuwa idinka dhaqaalaha iyo fooqyada iyo aqalada iyo maalka wanaagsan inaadan ku sad goosanin wixii alla idin siiyey alxamdu lilah dumarkii wanaagsanaa waxayn raggoodu markay aroortii ka tegayaan yaa haada ittaqi illaaha fiina war yaa hebelow waad noo shaqo tegaysaaye war ilaahay nooga cabso war xaaraan ha noo keenin war xalaal noo keen gaajo waa u adkaysan karnaa naaru ma adkaysan karno saasay odhan jireen waxaa ka mid a waxyaabaha muhimka ah inay mucaamalada ehelkiisa wanaajiso sodohdeed iyo sodogeed iyo aqribada iyo guriga inay wanaajiso ayaa ka mid ah inaanay samaynin wax dhibaya hadal iyo af iyo adin iyo ficil inaanay ku samaynin in ay ku dadaasho aqalkaa ay ku jirto in wad iyo ajal u timaado ay ka baxda mooyaane inaanay aqalka kaga bixin wax kale oo haddii wax yar laysku qoonsadaba aanay odhan warqadayda isii waxyaabahaasoo dhan ayaa ka mid ah
in haddii uu dhinto tii alle u timaado 4 bilood iyo 10 habeen ay u cida tirsato isaga waxaa laga rabaa si habboonoo wanaagsan inuu ula macaamilo qoftaa dumara ee ilaahay subxaanahu wa tacaala mas-uuliyaddeeda xilkeeda uu saaray waxaan dembi haleeshiinayaa labada taagta daran ee daciifka xaqooda qofka dayaca agoonka iyo qofka dumar uu nebigu sal allahu alayh waali wasalam waxaa ka mid a inuu masruufo oo xaragadeeda iyo caafimaadkeeda iyo nolosheeda iyo dhan walba uu intii itaalkiisa kula dadaalo waxaa ka mid ah inuu si wanaagsan ula dhaqmo hadallo wanaagsan uu kula hadlo ayaa ka mid ah maxaan ku idhaahdaa hadallo fiican oo wanaagsan uu gabadhii kula hadlo ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah in uu sida iminka la sameeyo ka ilaaliyo waa inuu hadduu cawaynayo oo soo jeedayo aqalkiisa iyo qoyskiisa la caweeyaa la soo jeeda maqaaxyaha inta la fadhiisto 11 ku soo dhaadhacaya sida inuu gaadh ka soo degay oo kale meel 12 habeennimo waa inaad markaad cishaa'iga tukato haddaadan hawl muhiima lahayn heerka kaale oo carruurta iyo qoyska xaaska u sheekee oo sheekadeeda dhegayso oo taada ha dhegaysato oo ummad idinkoo saa u wada sheekaystay oo kala war qaatay in maxaan ku idhahdaa markaa la kala seexdo waxaa ka mid ah in maxaan ku idhaahdaa qofka dumari uu aad ninku indhaha ugu fiirsan qofkan waa qof bani aadama wuu khaldamaya waxbaa ka dhacaya waxbaa ka khaldamaya hadallaa ka soo dhacaya wax weliba maxaasaa ii tidhi waxaasaad igu samaysay garnaqsi taagan un inaanu meeshii noqon dulqaad waa inaad samaysa dulqaad wax badan dhegaha aad ka xidhataa ayaa loo baahan yahay waxaa ka mid a in akhlaaq wana shareecada baristeeda iyo diinta ku dhaqankeeda inaad kula dadaashid waxaa ka mid ah in aadan gabadha af iyo adin wax gaadhsiin oo aad gacantaada iyo afkaaga iyo cay iyo habaar iyo dil iyo dhaqan xumo iyo dayac inaad ka ilaaliso waxaa ka mid ah gabadhii haddii idinku weydiisato inaad u fasaxdo iyadoo ku xurmaynaysa haddii idinku weydiisato inaad u fasaxdo waxaa aadaabtii ka mid ah haddii ishaadu ay ku dhacdo cid kale waxaa dhici karta mararka qaarkood in ishaadu ay ku dhacdo qof kaloo dumar ah adoon u qasdin in aadan markaa is odhan islaantaada taad aragtay baa ka fiican oo ka wanaagsan oo ka qurux badan inaan taa is odhan rasuulku wuxuu leeyahy maalmaha ka mid ah ayuu intuu aqalka tegey islaantiisii iyo xaaskiisii saynaba oo harag asal marinayso shaqaynayso u soo galan ka soo kac haragga dabeetana rasuulku waa la kulmay markaasuu aqalka ka soo baxay markaasuu rasuulku saxaabadii u yimid markaasuu rasuulku wuxuu yidhi salawatullahi wasalaamu ninku hadduu reerkiisa intuu ka soo tago heer kale hadduu qof dumara ishiisa ku dhacdo oo hunguri galo reerkiisa ha u noqdo ha u tago waxa xaaskaagu leeyahay tanina waa leedahay marka inaad niyadaada u sheegto gabadhii ugu diinta wacnayd tii ugu quruxda badnayd tii ugu akhlaaqda wanaagsanayd tii ugu xishoodka badnayd tii ugu gobaysnayd ayaa ilaahay oori iyo xila kaaga dhigay liq calooshaada gelitaa laakiin haddaad istidhaahdo waa laga fiican yahay islaantano oo maxaan ku idhaha adigabaaba qalbigaagu ma fadhiyo waa in qalbigaagu uu reerkan 100% ku kalsoon yahay inahaas waqtigaa iga dhammaaday inahaasaan ku uruurinayaa ilahay waxaan ka baryayaa inuu naga dhigo min aladiina yastamicuuna alqawla fayattabicuuna axsana وصلى الله وسلم على نبينا محمد